Assalaamu calaykum. Caafimaad darrada buumaha degan uu u keeno ragnimada ninka waa mowduuca muuqaalka. Ku soo dhawow channelka cilmi Baahshe. Ragga intooda badan ma ku soo dhacdo waxa naaqusiya shahwada ilaa ay hamiyaan inay guursadaan oo carruur yeeshaan. Cilmi baarayaal ka socday jaamacadda Harvard ee ku taal waddanka Mareykanka ayaa cilmi baaris hubin ah ku sameeyay buumayaasha raggu xirtaan oo si weyn u saameysa soo saarka shahwada. Waxay sheegeen in buumaha ugu badqaba uu yahay kan aan degganayn ee halafka ah. Sababtuna way sahlan tahay. Buumaha halafka ah ama aan kugu degganayn wuxuu nifaas siiyaa xiniinyaha oo ma cariiriyo. Cilmi baarayaasha ayaa rag badan oo xirta kastuumooyinka degan ka qaaday imtixaano kala duwan shahwadooda. Jawaabta soo baxday ayaa noqotay in 25% shahwada ragga xirta buumaha fidsan ay ka badan yihiin kuwa xirta buumaha degan, kana badqabta 35% wayna kala falgali ogtahay ugxaanta haweeneyda. Cilmi baarayaasha ayaa sidoo kale dhiigag iyo dhacaamo kala duwan ka qaaday ragyow badan kadibna ogaaday in ay kala fursad badan yihiin markay timaado xagga dhalmada, oo kuwa buumaha fidsan qaata baa kaga fursad dhow. Xirashada buumaha nifaaska leh oo fidsan ayaa u caafimaad ah ragnimada iyo xiniinyaha ninka. Wax aan kuu dhoweyn ha isku soo jiidin. Ku dadaal inaad xirato buumaha aan degganayn oo fidsan. Adigana way kuu fiican tahay xilliga aad fadhido, oo waxaad dareemaysaa degganaansho xagga fadhiga ah markii lala barbar dhigo qofka xirta buumaha deggan. Aad ayaad u mahadsantahay.